kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee Galmudug ahna musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka dagay magaalada Muqdisho iyo hadalla xasaasiya oo halkaas maanta ka jeediyay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inta uu socday waliba xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya oo iyana halkaas ka sheegay warar xasaasiya oo qotoma arrimaha doorashooyinka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shaaca ka qaday in guddiga hadda jira ee dawladda Soomaaliya ay magacawday in ay gabi ahaanba aysan shaqayn doonin wasoo hadalka u dhigay dagaalka ka socday dalkaas Itoobiya oo wali sii xogeystay iyo magaalooyin badan oo laga qabsay kooxda TPLF ee Tigrayga ee xunta waqooyiga dalkaas Itoobiya qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan aanu ku bilaabanay madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maanta ka dagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in doorashada 2022 bisha February ee soo socota ka dhici doonto magaalada Muqdisho in ay haddii aan laga heshiin inaysan doorasho sax ah ka dhici doonin Soomaaliya Cabdikariin Guuleed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gabi ahaanba dawladda Soomaaliya sida ay wax ku wado inaysan shaqayn doonin isagoo oo intaasi ku daray in haddii ay dawladda Soomaaliya ay sidaasi ku adkaysato guddigaasi ay magacawday oo uu sheegay inay yihiin askar iyo waliba hay'adaha kale ee dawladda shaqaale ka tirsan inaysan gabi ahaanba suurtagali doonin sida uu sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u taagan musharaxnimada 2022 doorashada lagu wado inay ka dhacdo Soomaaliya Guuleed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in markii xilka iyagu ay hayeen ay wax walba sameyn karayeen taana ay ka doorbideen in ay cadaaladda ilaaliyaan waa sida uu sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu intaasi ku daray in dalka Soomaaliya aan loo horseedin qalalaasa siyaasadeed isagoo oo sheegay in ajandihiisa siyaasadeed ee waxqabadka in hadda uu soo bandhigi doono maalmaha soo socda uu shir weyn ku qaban doono magaalada Muqdisho waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya ay u baahan tahay cadaalad iyo waliba qof sax ah oo maamulo waxa uu intaasi ku daray inuu yahay musharaxii ka bixin lahaa doorashada Soomaaliya ee ka dhici doonta 2022 dhanka kale xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ugu horeeyo xildhibaan Maxamed Salaad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in hadda dawladda Soomaaliya sida ay wax ku wado inaysan suurtagal ahayn isagoo oo shaaca ka qaaday in sharcigu uu yahay lagu kala dambeyn doono haddii xildhibaanada Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya haddii xilku uu ka dhamaadana in gabi ahaanba aysan suurtagal ahayn in ay sida ay wax ku wado in xilkaasi ay marka xilku uu ka dhamaado buu yiri Mahad Salaad in ay noqon doonaan iyaga oo kale waxa uu sheegay inaysan awood wax ku maamulo aysan lahayn Mahad Salaad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in haddii dawladda Soomaaliya ay sharci u hoggaansami doono ay sharciga u hoggaansami weydo in iyana sharcigu uusan waxba ka xadin doonin waa sidoo hadalka u dhigay xildhibaan Maxamed Salaad oo la hadlayay warbaahinta magaalada Muqdisho dhanka kale xildhibaan Odawa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in iyana askartan ay soo qoratay dawladda Soomaaliya waa sidoo hadalka u dhigay in aysan shaqayn doonin isagoo oo sheegay in gabi ahaanba ay ka soo horjeedaan sida ay wax ku wadaan isagoo oo sheegay in shalay Mahdi Maxamed Guuleed hadalkii uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ee ahaa in wareegga hore lagu kala baxay doorashadii ka dhacday maamul goboleedyada uu yahay mid iska cadaasna ay doonayaan doorashada soo socota in dawladda Soomaaliya ay ku shubato dadiyada ay soo qoratay inay maamulaan waa sidoo hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Xuseen Odawa oo warbaahinta ku hadlay dhanka kale senator Dhagdheer ayaa waxa uu sheegay in sharcigii iyo kala dambeyntii hadda ay qabaabsi tahay isagoo oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay gabi ahaanba ceel dheer ku riday doorashadii Soomaaliya askar badanna ay u adeegsanayso isagoo oo sheegay inuu yahay oday xogaal oo dawladihii Soomaaliya soo maray uu ka ahaa xildhibaanadii soo maray uuna hadda si ay wax ku socdaan aysan suurtagal ahayn sida uu sheegay senator Dhagdheer dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siiyay warbaahinta kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in guddiga hadda dowladda Soomaaliya ay magacawday ay xareysay
in aysan macquul ahayn in sidaas ay kusii socdaan, isagoo oo sheegay in haddii sharciga la dhowri waayo cid kasta ay faraha la soo gali doonto. waxa uu intaasi ku daray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in markii uu madaxweynaha Soomaaliya ahaa uu wax walba xushmeyn jiray, taasoo uu ku sheegay in haddii dowladda Soomaaliya ay hadda sidaasi ku sii adkaysato in aan indhaha laga qabsan doonin, isagoo oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay qori isku dhiib. waxa uu intaasi ku daray in haddii sharciga lagu kala dambeyn waayo uu yiri Xasan Sheekh Maxamuud in cid kasta ay dhankeeda wax u maamuli doonto, taasna ay ku lumi doonto dowladnimadii Soomaaliya oo ahayd qori isku dhiib bari sanadihii soo socday ee dambe. haddii aynu eegno saansaanta guud ee doorashada Soomaaliya hadda soo socota, waxaa dowladda Soomaaliya haddii sidaas aad ku adkaysato waxaa laga yaabaa in bishan 21keeda ilaa 22keeda in ay guddiga mucaaradka midoobay ee Soomaaliya oo musharaxiinta in iyana laga yaabo inay ku dhawaaqaan guddi doorasho kaasoo qalalaasa gelin doona baa la yiri siyaasadda Soomaaliya. waxaa la soo sheegayaa in hadda dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba xareysay oo tababar ay u furtay guddigii doorashada, walow aysan soo magacaabin xildhibaanada waa xubnaha mid uga noqonaya maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu wali wax wara aan laga haynin inay soo magacaabi doonaan iyo in kale. waxaa la soo sheegayaa in maalmahan soo socda in doorashada Soomaaliya laga yaabo inay igasho waji cusub. wixii ku soo kordhay barnaamijyada dambe waad kala socon doontaan insha Allah taala. kala socotaana waa Abshir Joker channelkan kun ila YouTube iyo waliba page-ka Abshir Cabdi Jaamac Joker. nabadgelyo. والله سبحانه سنالينايه مكبر السلام ربنا سيمك هاي سما وزهيي صومالي مقعد تركيك يري سلعيو دباتيو فحريق صارو صدوه كاشي سما وظهر يجي صومالي مقعد